dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si weyn hoos ugu dhigi doonto howlgalladii militari ay ka waday goobaha muhiimka ee Ukraine sida agagaarka caasimadda Kiev iyo waliba magaalada waqooyiga dalkaasi dhacda ee Chernihiv. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay in waddankiisu si weyn u dhimi doono dhaqdhaqaaqa iyo howlgallada ay ka wadaan labadaasi goobood. waxaana tan ay ka dhigan tahay in horumar wacan laga gaadhay dadaaladii nabadeed iyo dhexdhexaadintii laga waday labada dhinac ee ka dhacay magaalo ganacsiyeedka Turkiga ee Istanbul. wafdiyo kala matalaya labada dhinac oo ka wada hadlay qaabkii loo soo afmeeri lahaa dagaalka muddada bisha kor u dhaafaysa ka socda waddanka Ukraine. labada magaalo ee Kiev iyo Chernihiv oo ah kuwii ugu weynaa ee sida gaarka ay u tilmaansan jireen ciidamada Ruushku ayay ka bixista ciidamadoodu noqonaysaa guul u soo hoyatay Ukraine oo laga qaadi doono culayskii iyo duqaymihii maalin walba halkaasi ka socday. ha yeeshee reer galbeedka taageera Ukraine ayaa qaba in dib u gorashada Moscow aanay ahayn mid la aamini karo oo laga yaabo in uu tan u sameeyey si uu culayska u saaro isla mar ahaantana dagaalka iyo weerarada ugu weeciyo gobollada gooni-u-goosadka doonaya ee Donetsk iyo Luhansk kuwaasi oo dhaca bariga dalkan duulaanka lagu soo qaaday ee Ukraine. iyagoo reer galbeedku ku doodaya in Ruushku iska caabin xoog leh kala kulmay tan iyo markii uu isku dayay in uu qabsado caasimadda Ukraine oo ah goobta ay joogaan madaxda dalkaasi oo ahaa kuwii bartilmaameedka u ahaa ciidanka uu Putin amray in ay soo qabtaan madaxweyne Zelensky. ha yeeshee waxaa jira dood kale oo iyana sheegaysa in dhimista duulaanka Ruushka ay sabab u tahay kadib wadahadalladii toddobaadkan ka dhacay Turkiga oo labada dhinac si weyn isugu soo dhowaadeen. Moscow ayaa wadahadalladaasi si weyn u dalbatay in Ukraine aqbasho dalabka Ruushka oo ah in marnaba aanay Kiev ku biiri karin ururka gaashaanbuurta NATO oo ah qodobkii marka horeba barbilowga u ahaa xasarada gacanka hadalka isu beddeshay ee ka dhex oogan labada dal. halka Ukraine dalbatay in laga dulqaado ciidanka dagaalka ka wada dalkeeda oo ay sheegtay in iyaga oo madaafiic ku garaacaya aanay suuragal u ahayn qaadashada nabad buuxda iyo weliba is-afgarad amni. shirkan oo ahaa kii ugu wanaagsanaa ee labada dhinac isu tanaasul muujiyaan ayaa la iskula soo qaaday qodobadii sababta u ahaa dagaalka. madaxa kooxda wadaxaajoodka Ruushka Vladimir Medensky ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwa midho dhal ah isla markaana aanay ahayn xabad joojin waarta balse ay ahayd mid xal u noqon karta xalinta colaadda labada dhinac. iyadoo labada geesood ee wadahadalka yeeshay ay ku laabanayaan dalalkoodii si ay la tashi ugu noqdaan madaxda sare. khubarada ammaanka ayaa iyaguna sheegaya in haddii Ruushku ka dhabeeyo dhimista awooddiisa gudaha Ukraine ay tahay tallaabo wanaagsan oo muujinaysa rajo fiican oo laga qabo in la soo gabagabeeyo dagaalka dhiigga badani ku daatay ee ku dhowaad 40 caanamaal ka socda halkaasi kaas oo ay ku barakaceen dad kor u dhaafaya 3 milyan oo ruux isla markaana ay ku naf waayeen kumanaan kale oo u badnaa dad aan waxba galabsan.